golaha deegaanka ee maamul goboleedka Khartoum ee Soomaaliya ayaa maanta gurmad biyo dhaamisa ka bilaabay magaalada Buuhoodle biyo dhaamiska oo la gaarsiinayay xaafado ku yaala magaalada Buuhoodle biyaha maanta ay qaybinayeen golaha deegaanka ee maamulka Khartoum oo ay soo dhiibeen hay'ado ka dhisan dalka dibadiisa ayna soo gaarsiisay gudoomiyaha ururka samafalka ee dugsi Sahra Diriye Gabaandiid ururkaas oo ka howlgala dalka Holland waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay kana warbixiyay biyo qaybintan ay maanta ka bilaabeen magaalada Buuhoodle aadan cali olol oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka muxuu ahaa hay'ado ka jira wadanka Holland gudoomiyaha ururka samafalka ee dugsi oo ka howlgala wadanka Holland gabadhaas oo la yiraahdo Sahra Diriye Gabaandiid muxuu ahaa ahna afayeenka ururka haweenka ee la yiraahdo Tayo runtii khayr Allah siiyo gabadhaasi ururadaas maartay runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa wax qabadka ballaaran ee ka qabteen deegaanka tii ugu horeysayna ma aha runtii qaybo badan oo wax qabadka ama horumarka deegaanka ayay ka qayb qaateen ururadaasi runtii mahad ballaaran baan u celinaa ilaahay mahad ballaaran baan u celinaa waxaanu maartay waliba aanu faraynaa inay noo sii kordhiyaan wax qabadkooda ku aadan horumarka deegaanka ayagoo yacniga maartay ka muuqda dadka soo caawiya maartay deegaanka oo horumarka ka shaqeeya deegaanka runtii ka muuqda aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa asaguna sidoo kale halkaas ka hadlay musharax Salebaan Aadan Cilmi Dheel oo asagoo mid mar walba u taagan horumarka bulshada lama hadlay dadka wanaagsan waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan biyo dhaamiska qofka wanaagsan waxa weeye qofka muslimka ee u danqanaya ee dhibaatada markaa qof muslim oo dhibaataysan inuu dhibaatada la qaybsado anu guud ahaan Soomaali Khartoum iyo Soomaali oo waa isku mid shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan dadka masaakiinta ee aanu adeegayno ee aan arkaysaan oo man ee haraadan qof kasta oo Soomaaliyeed haraadka waa yaqaana hadaad soonto waraaqdu inta dhashanta haraadaysa qofka biyo waa in laba maalmood ama laba habeen waraaq kuleelaha joogana waad garanaysaa marka aan ka codsanayaa dadka wanaagsan ee Khartoum iyo Islaamka dhanba in la caawiyo shacabka aanu gargaarayno ee aanu khidmeynayno assalaamu calaykum إنكم عن شغلنا حافظ وابري وستة وسبعة بيا قايدتي واسع عم وسعطا وكما وسعطان ورما مقنا إلهي مثلا وانو حاول ما مقنا خيرها يوم السوق عم وسعطا مثلا وعم فرنا ضدك مسلمين خير كلام بحا إني أوارنا يبيدان سكاكتشرة قبل كعين أكسر ضيدان بتاع مسلمين تاه ولا له وحايقنا sidoo kale halkaas ka hadlay una mahad celiyay golaha deegaanka iyo hay'adihii soo gaarsiiyay biyahan bulshooyintii loo qaybinayay biyaha كاسهان مهد بانو سعلينيا وقت بانو هاي بيلان بانو هايسي هذا يقنا عاون الله إيمان ما نهلين قرقاك هذه عم محمد إن إله الودر الموت هاي هذه تشارك قبلها يقع نرسل جارة جرمتك هذه حالة كستاء عم كسبنا هاي جرمتك نرسل جارة بحاول إني كبرواقع يقضي بعد عين سهلان محمد الناس قبلها خاطر وقرتي بسجاشن وعينهم كل كستوان وسوا جاران وحين حارات كستان كتير لكن هذه شهرات بدنا بحد معرض أنا أهمرك وجو رئيسي أبي قيبين نوعا وكلها أي كبلامان قلها ديجان كإمام الكخاتم ومقالة أبوه هذل محمد علي بلا تلفزيون كقرن كالصومالية مقالة أبوه هذل